السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geedka khudaarta ee la yidhaahdo qarcul casal waxa luuqadda Soomaaliga lagu dhahdaa dube muuqaal ahaana wuxuu aad ugu egyahay geedka kale khudaarta ee la yidhaahdo shamaam midhihiisa ama iniyihiisuna waxay aad ugu egyihiin midhaha xabxabka waxaanu geedkani caan ku yahay oo lagu yaqaanaa in laga helo faa'iidooyin badan oo caafimaad wuxuu aad ugu fiican yahay beerka isagoo beerka siiya maadada uu ku burburiyo subagga waxaanu wanaajiyaa shaqada uurku jirta isagoo gebi ahaanba meeshana ka saara calool istaagga waxaanu dawo la yaab la u yahay dhanjafka sidoo kalena wuxuu geedkani caan ku yahay inuu dawo biyo kama dhibcaana u yahay dadka la dhiban xanuunka dhiigkarka waxaanu ilaa xad wanaajiyaa difaaca jidhka waxaanu caloosha ka saaraa noocyada kala duwan ee gooryaanka waxaanu jidhka siiyaa biyo badan si aanu jidhku u dareemin haraad sidoo kalena wuxuu dawo u yahay qanjirhka borostaataha waxaana loo cunaa oo loo isticmaalaa qaabka xabxabka oo kale iyadoo sidoo kalena loo samaysan karo sharaab ahaan midhaha muuqaal ahaan u eeg lowska ee magacooda la yidhaahdo fustuq ingiliishtana lagu yidhaahdo pistachios waa midho caafimaad ahaan loo isticmaalo jidhkana waxtar badan u leh waxaa ku jira midhahan maadooyinka xadiid sanag calcium manganiis iyo faytamiinada kala ah c a iyo faytamiin h waxtarkoodana waxaa ka mid ah waxay wanaajiyaan caafimaadka maskaxda iyagoo kor u qaada xasuusta waxaanay ka ilaaliyaan dhiiggu inuu yeesho kolestaroolka nooca xun isla markaana waxay ka hortagaan inay xidhmaan halbowlayaasha wadnuhu waxaanay hoos u dhigaan khatarta ka iman karta xanuunka dhiigkarka waxaanay dawo ka yihiin dhiigyaraanta jidhkana waxay ka ilaaliyaan noocyo badan oo ka mid a kansarka waxaanay wanaajiyaan caafimaadka sambabada iyo laabta waxaanay habeeyaan sonkorta ku jirta dhiigga waxaanay u fiican yihiin dadka qaba xanuunka sonkorowga waxaanay ka hortagaan calool istaagga iyagoo dawana ka ah xanuunada ku dhaca caloosha dhinaca kalena waxay badiyaan caanaha hooyada nuujinaysa ilmaha iyadoo la sheegay hooyada ilmaha nuujinaysa ee midhahan isticmaasha inuu ilmuhu caanaheeda ka helo waxtar aanu ka helin dhammaan caanayowga kale waxaanay u fiican yihiin hooyada uur kale iyo ilmaha caloosha ku jiraba kelmado koobkooban oo ku saabsan caafimaadka oo uu soo diyaariyey mowqica ka faallooda arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo Family Health Freedom Network waxaanay u dhignaayeen sida tan maalinta koowaad iyo maalinta labaad ilmuhu caanaha uu ka shaqan naaska hooyadii wuxuu ka helaa faa'iidada ugu badan marka la barbar dhigo maalmaha kale timirtu waxay ka hortagtaa kansarka ku dhaca caloosha saliid saytuunta oo madaxa la marsadaa waxay ka hortagtaa daadashada timaha caleenta geedka baqduunas waxay ka hortagtaa inflammationka ku dhaca kala goysyada jidhka iyo rheumatismka dhiigkarku wuxuu ku dhici karaa xataa ilmaha yar ee jaqaya naaska hooyadii findoobka waxaynu ku naqaanaa inuu kasoo baxo wejiga laakiin wuxuu kasoo bixi karaa laabta iyo dhabarka faytamiin eegu waa faytamiinka ugu fiican indhaha hurdo yaraantu waxay burburisaa oo meesha ka saartaa difaaca jidhka basbaas qajiga ama basbaaska cagaaran sidaad u taqaano inkastoo dadka qaba xanuunka gaastariga iyo dadka xoqadaha ama qanjuhu ay xanuunayaan lagula taliyo inay aad u yaraystaan isticmaalkiisa haddana basbaaska noocani wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan waxaana aad ugu badan faytamiin c iyo faytamiin e isticmaalka basbaaska noocanina wuxuu ka hortagaa noocyo ka mid a kansarka oo ku dhaca ragga waxaanu u fiican yahay dadka qaba caburka isagoo fura sanka iyo neef mareenka waxaanu jidhka ka caawiyaa inuu soo daayo saliid aad u dhalaalisa maqaarka sare ee jidhka waxaanu isku dheelitiraa sonkorta jidhka ku jirta iyadoo lagula taliyo inay isticmaalaan dadka qaba xanuunka sonkorowgu waxaanu u fiican yahay dheefshiidka waxaanu dawo aad u fiican u yahay xanuunka dhanjafka 6 shay oo looga digay inay isticmaalaan dadka ka cabanaya xanuunka gaastarigu cabitaanka qaxwaha bunka ayaa lagu sheegay maadada ku jirta ee kaafiyiintu inay ilaa xad kordhiso ay siidho qofka ku kordhin karta xanuunka gaastariga waxaana lagula taliyay dadka qaba xanuunkaasi inay ilaa xad yaraystaan cabitaanka qaxwaha bunka dhinaca kalena cuntooyinka dhandhanaanka iyo basbaasku aad ugu badan yahay ayaa iyaguna qofka ku kordhin kara xanuunkaas hilibka cas maadaama hilibka cas uu ku badan yahay subagu iyo borotiino kaleba ayaa isagana lagu sheegay mid aan u wanaagsanayn dadka qaba xanuunka gaastariga waxaana lagula taliyay dadka ka cabanaya xanuunkaasi inay u leexdaan cunitaanka kalluunka iyo hilibka digaaga cabitaanada soodhaha leh ayaa iyagana lagu sheegay kuwo aad ugu xun dadka qaba xanuunka gaastariga dhinaca kalena iyadoo ay dhici karta dadka qaarkood markay cabaan caanaha inay waxoogaa ka nastaan xanuunka gaastariga ayaa haddana waxaa laga digay isticmaalka caanaha subaga leh kuwaasoo lagu sheegay inay sii kordhin karaan xanuunkaasi cuntooyinka milixdu ku badan tahay ayaa iyagana lagula taliyay inay iskaga fogaadaan dadka qaba xanuunka gaastarigu malqaacad yar oo geedka dhagayaraha ah oo shiidan iyo koob caana isku dar kadibna cab meeshana ka saar mashaakil badan oo caafimaad darro ah insha Allah
geedka dhagayaruhu wuxuu ka mid yahay dhirta loo adeegsado noocyada kala duwan, waana geed Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay mid manaafacaadkiisu uu badan yahay. geedkani wuxuu qani ku yahay faytamiinada kala ah faytamiin A, faytamiin C, faytamiin K iyo faytamiin E. sidoo kalena wuxuu qani ku yahay qaar ka mid ah maadooyinka aasaasiga sida calciumka, xadiidka, magnesiumka, fosfoorka iyo kuwo kaleba. dhinaca kalena caanaha ayaa iyaguna jidhkeenna ula waxtar badan. haddaba inaad isku darto malqaacad yar oo dhagayaro ah oo shiidan iyo koob caana ah kadibna aad cabto, waxay jidhka u leeyihiin waxtarkan. kow, waxay xoojiyaan awoodda lafaha iyagoo u fiican korriinka lafaha kana hortaga xanuunada ku dhaca lafaha. laba, waxay u fiican yihiin caafimaad qabka beerka, kelyaha, waxaanay dawo ka yihiin rheumatismka iyo jilba xanuunka. saddex, waxay wanaajiyaan caafimaad qabka dheefshiidka waxaana yareeyaan xanuunka bawaasiirta. afar, waxay ilaa xad u fiican yihiin ruuxa dumar ah ee uurka leh, gaar ahaan xilliga ay ku jirta bilaa hore, iyagoo dawo ka ah xanuunada ay dareemi karto hooyadu xilligaas. shan, waxay wanaajiyaan xasuusta maskaxda waxaanay hagaajiyaan caafimaadka ciridka iyo ilkaha, waxaanay ka caawiyaan qofku inuu helo hurdo fiican. jidhkana waxay ka saaraan subagga saayidka. qasab sukar waa geedka aynu u naqaano aala sonkorka, waxaana lagu tiriyaa geedkan dhirta laga sameeyo cabitaanada sharaabka inuu yahay kuwa ugu muhiimsan. inkastoo inagu aala sonkorka aynaan badanaa u isticmaalin sharaab ahaan, haddana wadamada Hindiya iyo Baraasiil waa sharaabka ugu horeeya looguna jecel yahay. waxaana ku jira geedkan aala sonkorka ee cabitaanka laga sameeyo macdanta ay ka mid yihiin manganiis, magnesium, calcium, fosfoor, potassium, nuxaas iyo sanag. waxaa sidoo kalena ka buuxa faytamiinada ay ka mid yihiin faytamiin C, B12, B1 iyo B6. waxtarka sharaabka laga sameeyo geedkani uu jidhka u leeyahayna waxaa ka mid ah wuxuu ka hortagaa cilladaha ku yimaada dhiigga, waxaanu firfircooni badan siiyaa murqaha iyo maskaxda, waxaanu wanaajiyaa xaaladaha nafsaaniga isagoo jidhkana ka dhiga mid degan, waxaanu furaa cunto cunista dadka ay cuntadu ka xidhan tahay, waxaanu meesha ka saaraa calool istaagga, waxaanu jidhka siiyaa firfircooni badan, waxaanu awood u yeelaa lafaha isagoo jidhkana siiya biyo badan, waxaanu hoos u dhigaa naaxitaanka badan ama cayilnaanta badan ee jidhka. dadka qaarkood markay hurdaan waxay isku arkaan qoyaan badan oo ka yimaada afka ama dhareer ama candareeraba, kolba sidaad u taqaano, kaasi oo mararka qaarkood gaadhi kara ilaa barkimada. haddaba inkastoo carruurtu marka ay yaryar yihiin, gaar ahaan markay jiraan 3 sano ilaa 6 sano ay tahay mid iska caadiya, laakiin dadka waaweyn ee markay hurdaan isku arka dhareerka aadka u badan ee ka yimaada afkooda, waxaa jira waxyaabo la sheegay inay sabab u noqon karaan arrintaasi. waxyaabaha keeni kara arrintan oo 6 arrimood lagu sheegayna waxay kala yihiin: kow, haddaad leedahay sanboor ama xanuun dhinaca sanka waxaa iman karta arrinta noocana. 2, haddii gaaska calooshaada uu aad u kacsan yahay markaad seexato waxaa iman karta arrinta noocana. 3, haddii ay ku hayso noocyo ka mid ah xasaasiyadda markaad seexato waxaa iyaduna iman karta arrinta noocana. 4, haddii qanjaha ama qumanku ay ku xanuunayaan waxay sababi karaan arrinta noocana. 5, haddii ilkuhu ay ku xanuunayaan wuxuu xanuunka ilkuhu sababi karaa arrinta noocana. 6, dawooyinka la qaato qaarkood ayaa iyagana lagu sheegay inay keeni karaan arrinta noocana. dhinaca kalena waxaa la sheegay inay arrintani mararka qaarkood hordhac u noqon karto xanuun halis ah, inkastoo arrinta lagu sheegay dhif iyo naadir. inagoo ka wada dharagsan faa'iidooyinka xabxabku leeyahay, waxaa kalooynu ognahay in xabxabka markaynu isticmaalno aynu diirkiisa ama qoloftiisa iska tuurno, laakiin waxa xaqiiqa haddaynu ognahay waxyaabaha ku duugan ama ku jira diirkaa sare ee xabxabkee aynu tuurayno inaynaan tuurneenba. haddaba daraasado badan oo dhowaanahan la sameeyey, kuwaasoo badankooda laga sameeyey dalka China, qaarkoodna ay socdeen 3 sano, waxaa lagu ogaaday in diirka xabxabka ee markaynu xabxabka cunno aynu tuurnaa uu jidhkeenna u leeyahay faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaadka. marka aynu dib uga faa'iidaysanno diirka aynu tuurno ee xabxabka, faa'iidooyinka caafimaad oo aynu ka soo qaadan doono 9 ka mid ah, kuwaas oo kala ah: kow, wuxuu dawo biyo kama dhibcaana u yahay xanuunka dhiigkarka. 2, sidoo kalena waxaa lagu daweeyaa kaliya xanuunka. 3, waxaa kaluu dawo u yahay calool istaagga joogtada ah, wuxuu dhimaa ama lagu dhimaa miisaanka jidhka. 7, wuxuu ka hortagaa sidoo kalena jidhka ka ilaaliyaa dhammaan noocyada kala duwan ee kansarka. 8, wuxuu dawo fiican u yahay wadna xanuunka. 9, wuxuu jidhka ka saaraa sidoo kalena jidhka ka ilaaliyaa sunta iyo wasakhowga dhiigga. haddaba qaabka loo isticmaalayaa waxa weeye in diirkii xabxabka la jarjaro, kadibna la tumo ama la ridqo, kadibna lagu dhex rido biyo kulul si uu u karsamo, markaa kadibna la qaboojiyo. markuu qaboobo in maalin kasta la cabo xaddi kooban oo ka mid ah biyihii laga sameeyey diirka xabxabka, sidaasna lagu wado muddo 30 cisho xidhiidh ah. waxa xaqiiqa inaynu dhammaanteen wada raadinayno in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo barakeeyo wax kastoo aynu haysano. barakaduna waa mid ka timaada xagga Ilaahay. waxaanan muuqaalkeennan maanta idinku soo gudbinayaa 8 arrimood oo ka mid ah furayaasha barakada, kuwaas oo kala ah: furaha koobaad,
akhriska qur-aanka kariimka ku dhaqankiisa baristiisa iyo barashadiisa iyo furaha labaad oo ah xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in la badiyo ilaahay xuskiisa xilli kasta iyo goor kasta iyo furaha saddexaad oo ah sadaqada gaar ahaan sadaqada si hoose loo bixiyo iyo furaha afraad oo ah xidhiidhinta qaraabada iyo furaha shanaad oo ah in subaxdii xilli hore la kaco si loo raadsado arsaaq xalaala ama marka qofku uu salaada subax tukado aanu hurdada ku noqonin iyo furaha lixaad oo ah tukashada salaada iyo in salaada la hagaajiyo iyo sidoo kale in lagu dadaalo in salaada lagu tukado jamaca iyo furaha toddobaad oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba loo tala saarto oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba u tala saarato adigoo ficilkiina la imanaya iyo furaha sideedaad oo ah in la badiyo istiqfaarta lana joogteeyo. lowsku wuxuu ka mid yahay midhaha la isticmaalo isla markaana caafimaadka laga helo iyadoo lowska uu ku badan yahay dufanka aan dhibta lahayn ee jidhku u baahan yahay waxaana lowska loo isticmaalaa siyaabo kala duwan. in haddaba lowska biyo lagu radiyo habeenkii kadibna subaxdii la isticmaalo ayaa ah arrin kale oo lowsku waxtar badan oo caafimaad uu ku yeesho sida lagu sheegay daraasad la sameeyey 1990kii waxaa lagu sheegay in marka lowska biyo lagu radiyo habeenkii kadibna subaxdii la isticmaalo inuu leeyahay faa'iidooyinkan. lowska oo biyo lagu radiyo habeenkii kadibna subaxdii la isticmaalo in muddo wuxuu soo celiyaa miisaanka luma ama aan fadhiyin waxaanu wanaajiyaa xaaladda kolestaroolka aan dhibta lahayn ee la yidhaahdo HDL isagoo ilaa xadna yareeya kolestaroolka halista ah ee la yidhaahdo LDL waxaanu ka hortagaa xanuuno badan oo ku dhici kara wadnaha iyo cilladaha ku yimaada habsami u shaqaynta unugyada dhiigga iyo halbowlayaasha wadnaha isla markaana sida lagu sheegay daraasadda la sameeyey xilligaas in lowska biyo lagu radiyo habeenkii kadibna subaxdii la isticmaalo wuxuu ka hortagaa kansarka iyadoo la sheegay marka lowska qaabkan loo diyaariyo inuu bato faytamiinka ku jira ee la yidhaahdo faytamin B17 iyo maadada kale ee la yidhaahdo leatheryl. dhinaca kalena marka qaabkan lowska loo diyaariyo wuxuu xad u yeelaa halista ka iman karta xanuunka sonkorowga iyo dhiigkarka ilaa xadna wuxuu u fiican yahay ruuxa dumar ah ee uurka leh. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf.